بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات waxaa farxado ah walaalihiin tasjiilaad idin xambalin islaamiga inay iclaamiyaan kelimad soo socota, muxaadaro soo socota, wacdi soo socda. wacdigaas oo mowduuciisa uu yahay الطريق الصحيح, wadada saxsan. wacdigaas wuxuu ku socdaa al-akhawaat alkarimaat. waxaad ogaataan marka ugu horeysa intuna wacdigaas noo bilaaban nolosheena maalin walba waxaa la kulanaa caqabado aad u badan. caqabadahaas khaasatan oo la xiriira caafimaadkeena kow iyo cilaajka, ama caafimaadkeena kow iyo daawada. kulligeen waxaan raadinaynaa xalliga aan raadinayno wuxuu ku saabsan yahay caafimaadkeena oo ah qaybta jirka ah, ama qaybta nafsiga ah, ama qaybta la xiriirta shayaadiinta dhibka nagu haysa. kulligeen waxaa raadinaynaa oo baaraynaa caafimaad. waxaa dhici karta mararka qaarkood in aan raadinno oo baarno, bal in aan dooranno waddo qaldan. marka waxa uu ku saabsan yahay wacdiga soo socda waddada saxsan na laga rabo inaan qaadno, waddada saxsan na looga baahan yahay inaan raadinno sidaan uga baxno dhibaatadeenna oo ku saabsan dhibaatada naga haysata caafimaadka, oo aan u helno caafimaad dhammaystiran oo buuxa insha allahu tacaala. waddo saxsan, waddo khayr qabta, waddo wanaagsan. waxyaalaha aan qaadayno oo samayn doono waxaa ka mid a inaan helno dhakhtarka habboon oo jiradeenna dhibaatadeeda noo sheegi kara, iyo inaan ogaano farqiga u dhexeeya daawada saxsan uu dhakhtarka saxsanna siin doono iyo wadaadka qur'aanka dadka saari doona oo saxsan oo nebi moxamed raacaya iyo sunnadiisa iyo waddadii saxaabada, iyo dadka sheeganahaya dhakhtarnimada, iyo dadka sheeganahaya inay yihiin dad qur'aanka dadka saara ama dadka qur'aanka ku tufa. marka waa inaan kala ogaano farqiga u dhexeeya nasiixada runta ah iyo propagandada ama isxayeysiinta bugta ah, dardaaranka saxda ah oo qalbiga ka soo baxaya iyo dardaaranka aan qalbiga ka soo baxaynin. malo wanaagsan iyo kalsooni wanaagsan waa inaan u hayno qofka isku dayaya inuuna daaweeyo oo raba inuuna caawiyo, hadduu yahayba qof saxsan, hadduu yahay dhakhtar wanaagsan, hadduu yahay dhakhtar ku habboon dhibaatadeenna, hadduu yahay wadaad qur'aan dadka saaraya oo nebi moxamedna raacaya, saxaabadiisa see u raacaya. waa in marka aad aan xoog u saarno dardaaranada aan helayno, oo weliba aad iyo aad aan u fahanno, si weliba qoto dheer aan u gaarno go'aamada saxsan aan qaadi doono. waxaan isku daynaa insha allahu tacaala muxaadarada soo socota ina akhawaat alkarimaat alghaaliyaat inaan kor u qaadno wacyigiina saan iga ilaalin lahayn qaladka. waxaa haddaba sugtaan muxaadaradaas soo socota insha allahu tacaala. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، مع تحيات ولالين تسجيلات ابن حنبل الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله.